السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cashirkan waa cashirkii 26aad maadadii managerial accounting. website-ka share xirfad waxaad ka helaysaa koorsooyin kala duwan oo macallimiin kala duwan ay soo gudbinayaan. waxaan halkaasi hore ugu soo gudbiyey 5 koorso oo calaaqa la leh qaybta accounting-ka. koorsada principal-ka haddii aad weliga aadan accounting arag, koorsadan inaad ku bilowda ayaan kugula talinaya. haddii aad tahay qof horey u arkay muraajaca rabo dibloomada inaad aad ka bilowdo ayaan kugula talinayaa qaybta 1ka, kadibna qaybta 2ga. aqoontii aad u baahneed ayaad halka ka helaysaa. markii aad aqoonta aad waxayso sifa aad practical ahaan ugu bedesho, koorsada QuickBooks ayaan ku diyaarinay. QuickBooks reportyada ka soo baxay sifa aad u analyze garayso, Excelka ayaan ku diyaarinay qaybta data analysis ee calaaqada leh qaybta businesska. waxaan halkaad ka helaysaa koorsooyinkan insha Allah tacaala. sifa aad haddaad caawimaad u baahan tahay waxaad la xiriiri kartaa nambarka WhatsApp-ka ee share xirfad. markaad gasho page-ka ugu horeeya qaybta hoose yaallo. waxaan kaloo intaan cashirka maanta aynan bilaabin باذن الله tacaala isbuuca soo socdo maalinta jimcada waxaan samayn doonaa live labaad oo aan uga hadlayno ACCA-da. hadda hordhici ayaan ka hadalnay. hadda waxaan ka hadlaynaa qofka raba inuu barto halkee ayuu ka baran karaa, aanan awoodin hadda inuu iska bixiyo lacagaha ama inuu safro. laana waxaan isla ognahay in ardayda qaarkood ay u safraan Kenya ama Uganda sifa ay maadadan u diyaariyaan. waxaan isla ogaan doonaa insha Allah tacaala qaab online ahaan sida loo baran karo, hataa resource-yada free-ga ah ee la heli karo. marka sifa aad uga qayb qaadato live-kaasi waxaad ku soo biirtaa Telegram-ka qaybta description-ka yaallo iyo commentiga ugu horeeyo. cashirka aan guda galno hordhacaasi marka aan ka soo tagno. cashirka maanta haddii aad cashirkii hore soo qaadatay, waxaan isla ogeyn in aan furnay qaabka shirkadda ay u plan garayso profitkeeda. sifa shirkadu u plan garayso profitkeeda waxaan niri waa in ay diyaarisaa master budget, miisaaniyadda dhamayska tiran. koorsadan hadda aan qaadanayno ee managerial accounting waxaan niri waxaan xooga saaraynaa 4 ka mid ah 8 miisaaniyadood ee master budget-ka ah. midii ugu horeysaan maanta qaadanayna marka. midda ugu horeysa waxay calaaqa la leedahay saleska. sales budget waa miisaaniyadda iibka. waxaa la socdo cash collection schedule. marka aad wax iibiso, you are expecting in aad lacag soo aruuriso. waxaa la socdo schedule ama jadwalka lacag soo aruurinta. لأنه macna ma keenayso in aad miisaaniyadaada aad dejiso saleska aadan garanaynin meeqaad soo aruurin kartaa. marka cashirka maanta ayaan ku qaadan doonaa. waxaa iga tala ah cashirkani inaad loo mar daawato. marka ugu horeyso in aad daawato notice-na aad qaadato. marka labaad inaad daawato qaybta practicalka mithaalka markaan bilaabayno in aad Excelka furto, isku daydo in aad dabaqdo stepska aan insha Allah tacaala ku sharaxi doono. hal mar kaliya ha dabaqin. mar dabaq adoo muuqaalka daawanayo, marna muctayaadka su'aasha lagu siiyey slide-ka waan ku tusi doonaa, calaamadda X aan ku saari doonaa. macluumaadkaasi warqad ku qoro, kadibna adoonan daawanaynin try inaad diyaariso miisaaniyadda iibka iyo jadwalka lacag soo aruurinta. haddii aad samayso 3 tilaabo ee aan ku sheegay, I hope in aad لأنه budgetka miisaaniyaddan imtixaanka haddii lagugu keeno, you have to memorize any steps ood raacayso. haddii aadan xifdisanayn, aadan gacantaada ka shaqaysiinin, way kugu adkaanaysaa inaad ka shaqayso. imtixaanka aan ka tagno, hataa haddii aad rabto in aad ku dabaqdo ganacsigaaga ama ganacsiga reerkiina ama ganacsiga aad ka shaqaynayso, way kugu adkaanaysaa haddii aadan gacantaada ka shaqaysiinin. ani filim ma ihiye ha i daawanina, gacanta ka shaqaysii. slide-kii aan ku lahaa
marka labaad ka qoro macluumaadka muctayaadka waa slide-kan. Okay, mithaalkana la siiyey ee la rabo in aan ku diyaarino miisaaniyadda iibka iyo jadwalka lacag soo aruurinta isla socdo waxa weeyaan sidan soo socdo. Okay, shirkaddan the marketing department qaybta suuqgeynta ee shirkadda ayaa waxa ay diyaarinaysaa budgetka for the quarter ending June. Okay, li'anno qaybta iibka yaa calaaqa la leh marketing department, soo muctayaadkani waa inay la wadaagaan accountingka, kadibna accountingka ayaa diyaarinayo. Okay, laakiin muctayaadkan oo dhan xaggee laga helayaa? qaybta marketing departmentiga ayaga ayaa suuq geynayo waxa aan soo saarno. soo iibka suurtagalka ah ee expectedka ah macluumaadka ayagan kasoo qaadanayna as accountant. Okay, idan waxaana laga rabaa quarterka 3 bilood ee ku eg 30 June. 30 June wuxuu ka bilaabanayaa April, May, June. 3 bilood ayaa la rabaa sifo aan u diyaarino miisaaniyadda iibka. 2 shay baan u baahannahay. 2 shay kaliya haddii aad ogaato miisaaniyaddu way diyaarsan tahay. macallin, waa maxay 2 shay? Number 1 waa in aad taqaano waa maxay tirada iibka ee aan samayn karno, unitiska aan iibin karno. Unitiska aad iibin karta haddii aad hesho 50% miisaaniyaddu waa diyaar. Okay, waxaa kalen u baahanay waa maxay? arday casharada la socda wuxuu leeyahay haddiiba aan helnay unitiska price-koodana waan u baahannahay. hagaag, idan labadaa haddii aad hesho, haddii aad odorosto si saxa u odorosto inta aad iibin karto iyo qiimaha aad ku iibin karto, miisaaniyadaada iibka waad diyaarin kartaa. idan waxaana la siiyey 5 bilood ay soo socoto. 5 bilood ay soo socoto Abriil, macnaha waxay ka dhigan tahay maxaan taagannahay maanta? March ayaan taagannahay. idan March marka laga bilaabo 5 bilood ee soo socoto ayaa waxaana la siiyey iibabka suurtagalka ah inaan iibino. shirkaddan Royal Company waxaa iibinaysaa lagu leeyahay 20,000, bisha ku xigto 50,000, bisha kusii xigto 30,000, bisha kusii xigto 25,000 August. arday wuxuu isleeyahay okay, nambaradan macallin adiga hadda nambaradan slide-kaan ugu siisay, bal ganacsiga inaan ku jiran ka soo qaad, sidee baan u xadidayaa? imtixaanka gartay oo macallinkaaba isiini oo anigu ma ihi falfalaalow. dadkan waxay maxay dhahaan dadkan kaahinka ay ku tilmaamaan. Okay, sidee baan ku helaa? ma ihi mid wax faalleynayo. Okay, haddii imtixaanka aad garatay oo su-aasha lagu siinayo qaybtan wax iibka waxaad dib ugu laabanaysaa sanadkii lasoo dhaafay. maxaan iibiyey bilahan oo kale? waxaad la barbardhigaysaa sanadkii ka horeeyey maxaan iibiyey. markaasaad fiirinaysaa ziyaadada iibka, korukaca iibka ku imaaday sanadkii lasoo dhaafay, sanadkii ka horeeyey iyo sanadkii lasoo dhaafay. nisbada ku ziyaaday ayaad waxaad base ka dhiganaysaa sanadkii lasoo dhaafay, waxaadna odorosaysaa sanadka bilooyinka soo socdo. laakiin waxaan ku laabanaynaa bilooyinkii sanadkii lasoo dhaafay. waxaan filaa markaa micnaha waxaad ka hadlaysaa macallin in ay tahay daato ay shirkaddu dib ugu laabanaysa iyada. bal ka waran shirkaddu haddayba sanadkii ugu horreysay hadda tahay. haddii sanadkii ugu horreysay hadda ay tahay, shirkaddu waxaa dadka maamulka ayaa best estimationka ay samayn karaan la rabaa inay sameeyaan. markaas maxaa lagu salaynayaa? Okay, maxaa ani ii yaallo iyo maxaan iibin karaa? li'anno waa inaad ku xisaabtanto waxa adiga aad dadka u soo bandhigayso. idan cala alcumuum markaan isku soo dardarno waa wax calaaqa la leh estimation. laakiin imtixaanka 2 shayaan hadda kuu sheegay, 2 waa lagu siinayaa. mar haddii la isiinayo maxaa laga rabaa? 100% miisaaniyaddu way diyaarsan tahay. khutuwaadka la rabaa, qaabkaad u raacayso steebyada ayaa la rabaa in aad lagugu imtixaanaya.
ee adiga ma lagu dhahayo sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan. macallimiinta way adkeyn karaan macallinku adkeyn karaa, wuxuu ku dhihi karaa sanadkii lasoo dhaafay iibabku sidan ayay ahaayeen, shirkaduna waxay expect garaynaysaa 10% inay ziyaado. markaasi waxaa weeyaan xoogaa hal tillaabo dib ku dajiyey. marka waxaa la rabaa inaad adiga ani waxaan oo dhan waxaan kugu sheegayo, waxaan rabaa maskaxdaada in aan ballaariyo oo aad waxaan ila fahanto si dhiible aad ila fahanto. okay, aan kusoo laabano miisaaniyada la rabaa inaan diyaarino. 5 biloodana la siiyey, pricekiina waana la siiyey. ardayba waxaa laga yaabaa fariid ah inuu su-aal isweydiinayo, why 5 biloodna loo siiyey? 3 bilood baan diyaarinayne, why 5 bilood loo siiyey? haddii aad su-aasha isweydiisay waa su-aal sax ah, jawaabteedana qaybta collectionka markii aan ka hadlayno ayaan insha allahu tacaala kaaga jawaabi doonaa. okay, markii aan bilaabayna, marka aan diyaarinayno excelka aan rabo markaad cashirkan dhamaysata kadib inaad samayso, waxaan rabaa excelka inaad furto kadibna aad qorto budget sales in unit siday tahay ku qor. marka hore April, May, June iyo quarter ama total waxaad rabto. idan kadibna waxaan qoraynaa budget sales in unit ahaan meeqa expected ah inaan iibino bil walbaba, price-ka waa meeqa, total budget sales-ka isku dhuf. okay, markaad isku dhufato kadib waxaa kuu soo baxayo iibka ay shirkadu expect garaynayso ee miisaaniyadda ku jira inay tahay 1 milyan. marba haddaad halkan meeshan gaadhay, sales budgetka aad u fudud yahay, kaliya waxaad u baahan tahay unitska iyo price-ka kadibna isku dhufanaysaa. that's all, waad dhamaysay. miisaaniyaddii budgetka waa dhammaystiran tahay, waad la wadaagi kartaa dadka maamulka. haddii aad imtixaan ku jirtana darajaadkaaga waad qaadan kartaa. okay, later on waxaan rabaa in aad marna adoo daawanaya aad samayso, marna muctayaadkii adoo haysto su-aalihii slide-kii lasoo dhaafay intaad ku qorto meel, in aad adoonan jawaabta fiirinaynin in aad qorto ayaan kaa rajaynaya. su-aalaha meeshan imaanaysa marka, waxaan ogaanay in iibka aan filayno kwartarka marka uu dhammaado 3 bilood ee sanadkani 1 milyan yahay. su-aasha taagan waxa weeyaan 1 milyan waan iibinay, meeqaa ayaan soo xarayn karnaa? meeqaa ayaan soo xarayn karnaa? su-aashaasi waaye su-aasha taagan. okay, sifa marka taa aan u ogaano waa in aan dib ugu laabano qaybta collection departmentiga. collection departmentina macluumaad aan ka qaadano. macluumaadkan ka qaadanayna waa maxay? dadka qaab noocee ayay lacagta u bixiyaan? siyaasadda guud waa maxay? number 1, siyaasadda guud shirkadu deyn bay wax ku bixisaa. waxyar suga. okay, koobkaagii shaaha intaad inaad soo qaadataan rajaynaya. intaad sugaysa booska aan kugu qabtay. okay, iskafaygaan soo qaatay aniga. hagaag, marka waxaan nidhi saleska on account, shirkadda iibka waxa ay bixiso dhan waxaa weeyaan on account. on account markaan leenahay waa deyn. idan maadaama iibabkeenu dhan ay deyn aan ku bixinay, waxay ka dhigan tahay departmentiga qaybta collectionka inaan shaqo u abuurnay. collectionka waxay dib ugu laabanayaan siyaasadoodii, patenta qaabka wax loo bixiyo ayay fiirinayaan. marka waxaa lagu leeyahay 70% in the month of sale ayay shirkadad ku bixiyaan, yani within 30 days ayay ku bixiyaan 70%. macnaha waxay ka dhigan tahay dadka badankood 30 days ay wax ku bixiyaan. okay, 25 waxaa la bixiyaa in the month following sale. macnaha waxay ka dhigan tahay within 60 days ayay dadka kalena ku bixiyaan. 5%na waxa weeyaan dad kuma bixiyaan. idan waxaan halkan ka fahmaynaa in 90% ay tahay lacagta aan expect garaynayno in aan qaban doono, oo 5%na ay bad debt ay noqon doonto. dabcan bad debt haddaad soo qaadatay koorsadii principle of accounting ama diblomooyinkan hadda ku sheegayay, waxa weeyaan qaabka loo xisaabiyo waan isla naqaanaa. okay,
idan haddii aad hadaayay isweydiinaysay maxaa 5 bilood la siiyey kuwaartaradu way isdhexgalayaan wali waxay isdhexgalayaan marka ay calaaqa la marka aan joogno qaybta schedule aan diyaarinayno cash collectionka way isdhexgalayaan laana waxay ka dhigan tahay bisha 6 tusaale ahaan 25 ka mid ah in bisha ee toddobaad aan qabanayno ayay ka dhigan tahay macnaha way isdhexgalayaan qaybta collectionka isdhexgalayaan sida darteed waa inaad suura caama aad haysato okay macluumaad dheeraad ah halkan lagu siiyay oo ah 31dii March in lacagta receivable keena la bixinin ay ahayd 30,000 lacagtaasna April la wada qabtay idan April laba lacagood aan qaban doonaa lacagta ugu horeyso lacagtii deynta dadka lagu lahaayay bishii saddexaad yani quarterkii hore iyo quarterkana isdhexgalayo qaybta collectionka iyo 70% iibka aan sameynay April ayaa laba lacagood aan bishaas aan qaban doonaa April idan sifaad u samayso expected cash collection maxaan sameynaynaa number 1 lacagta account receivable ka taagan ayaan qabanay waxaan rabaa marka inaad hadda daawato later on aad samayso adiga gacantaada ka shaqeysiiso Excel-ka aad ku diyaariso ama aad ku diyaariso hadii aad imtixaanka aad ka cabsanayso imtixaanka Excel laguma siinayo inaad warqada ku diyaariso midka aad rabto markii aan lacagta April ee ugu horeysay aan qabanay sidoo kale waxaan expect garaynaynaa April sales-ka inaan laba ay u qaybsami doonto 70% oo qabanayno bisha April iyo 25% oo qabanayno bisha May hagaag May waxaan qaban doonaa ayadana waxay noqon doontaa 70% ka mid ah bisha May ayaan qabanaynaa halka 25% aan qabanayno June aan qabanayno hagaag bal inta aynan dhameystirin bal su'aashani aan ka jawaabno su'aashani waa maxay waa meeqa lacagta totalka ah ee suurtagalka ah inay shirkadda soo collecti garayso waa meeqa okay sifaad uga jawaabtid jadwalkan ku laabo waa meeqa hal daqiiqan ku siinaya ee ka fikir inta aad ka fikirayso maskaxdaada waxa ku garwareegaya aan fiiriyo ardayba calculator intuu soo qaado wuxuu bilaabay inuu isku dardaro inuu 130 lagu daray 140 lagu daray 50 lagu daray 350 lagu daray 125 tira u soo baxday tirada ku soo baxday hayso arday kale ba 170 kan ku darayo 400 kadibna 125 ku darayo sifo ay halkan uga soo baxdo totalkan uga soo baxdo mid saddexaad wuxuu leeyahay saddexda arday maynan ka fikirin way degdegayn okay mid saddexaad ba wuxuu leeyahay macallin waxa iga maqan macluumaad calaaqa leh bishii lixaad lacagtii iibkii dhacay 70% ma hayo sida darteed jawaabta sifaan ku siiyo waa inaan 300 oo kun aan ku dhufto 170 natiijada soo baxday aan ku daro hadii aad sida aad ardayga saddexeed aad ahayd waxaan ku leeyahay jawaabta ku soo bixi doonto waa jawaabtan waad nasaxan tahay qaabkanayna u soo baxaysaa oo 70% June lacagta aan sameynay ayaa ka maqnay okay mar haddaad halkan soo gaadhay waxay ka dhigan tahay inaad diyaarisay budgetkii saleska iyo jadwalkii ku lifaaqnaa ee collectionka ah su'aasha aan ku weydiinay waa maxay iibka aan expect garaynayna waa meeqa waa 1 milyan miisaaniyadu waxay noo sheegtay inay 1 milyan tahay laakiin marka aad samaysay cash collectionka schedule-ka cash collectionka lacagta aad qabanayso 900 iyo 905,000 kaliya weeye 1 milyan oo dhan ma wada qabanaysid 125 June iibka dhacay waxay u gudbin doontaa bilooyinka ku xigo sida darteed macnaha macluumaadka markaad aad ka shaqaynayso waxaad u baahan tahay qaybtii ka horeysay iyo qaybtii ka dambeysay quarterka mooyaane waxaa la rabaa inta ay iska dhexgalayaan in ay suuradu picture-ka ay ku caddahay ayaa la rabaa hadda halkan soo gaadhay waad ku mahadsan tahay inaad cashiradan taawanayso waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideyso aan isku soo duceyno number 1 number 2 ha ka hilmaamin in aad cashirkan like-ta asaarto like-tu waxba noo soo kordhin mayso kaliya walaalaha ka mid ah
oo rafaadsan ayay cashiradana raadinayo ayuu youtube-ka u geynayaa. marka kaliya ka qayb qaado casharadan qaabkay ku faafi lahaayeen. haddaad sheerka samaynayso waxa weeyaan waa ka fiican tahay. haddii aad like-ta saaraysana waa kasii fiican tahay. haddii aad love noo saaraysana waxay noo cadaynaysaa inaadna jeceshahay. marka inaadna jeceshihiin aan aragne waxa weeyaan daa'iman hadda waxaan ku xisaabtamaa inta like-ta saartay inay tahay inta ugu dambayso ay cashirka dhammaysatay. 18 qofaa ugu dambaysay muuqaalkii iigu dambeeyey ee saaray. marka arrintaasi aan isla wada qaadano. allah idin wada barakeeyo. insha allah tacaala cashirka soo socdo ayaan ku qaadanaynaa. hadda hal baajeedaan dhammaynay, 4 baajeedana laga rabaa jabta yani maadadan qaadanayno, 3 baajeedan miisaaniyadood ayaa noo dhiman. tan productionka ayaan qaadan doonaa insha allah tacaala isbuuca soo socdo. dadka rabo inay kasoo qayb galaan miitinada live-ka ee suurtagalka aynaan qabanno qaybta telegramka kusoo biira. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.